أنت دويني أركني شيخ عبد الله الله يستر صما شيخ محوك هذا شيخ كلي وحوك هذا أون أرمهني تاسو كلام محوك هذا سا علماء ده هروجه هذا فرقة ما أنت تشرد إن لك هذا أيضا هو أساسي لأن فرقة شراء وخلاف سينهين هدير مساجد كم من مجال ذي هرجيسة ومسوا التقوى الله يراه إنه نمرك كهالله حاضرك وقبتي ده ترنيك وحيري مساج خطبة جمعية هالك كبحضي هدي اللي قريب لها حمد لله يا آياتها قرآن كي كتشري خطبة ده سواحة خطبة دي بوش ما كبوش واحد ويان برجع بوش نيكلوني شرا مريك بهجاميني موقت يا خطبة دي بوش واحد ويان بودي وقال إنك إمك قيلني ويان شعب عبد الله كقيلني ده تنا وحويان وحقاك بعد مدك بعد وضنك هرجس دق واحد كرد على قرح وتي مدحته يد القرحي مالك أنا لا قرحي كوريس وحي لقد دقي وانباصا قرن يقولون محيكون تصنيفيين وحيكون تصنيفيين يلهذين أو حقاس بوش يو حرتها سويا وحي مركها وحودن هذا قف كوري ماذا أما هو بصاص أما مرايكن بوش قيا أما قعمش شيء كتير أنت صحيح ولقيت بعين كوالو رنشري تدكي وناكسنا أنت ولقوا رنشري قالك لو حن كوالو لكن إلهي حكم كيس وحكم ذا وحي أي مركا ودادة السلفيين أي كو إيدينيين إن يجي اللفت ذي قدعه قعمش شيء كتيرا هو مرايكن يبلاي وحبا قعمش شيء كل حجر الريح أو وحوين دتك المسلمين تهاي حركات إسلامية هاي لدى قالمان قوة قولين كي لها يجي اللفت ذو حكده عادات إن قعمش شيء كل حجران لا بتصالو كليان سيني مرة إن قعمش شيء كتيرا يجي اللفت أو nimanka iga ka berida berika ah marka waxa weeyaan ay ku eedeeyeen mid waxa weey maalmihii dhaweeyay ugu dambeeyay nin la wareysanayo waxa weeyaan sirdoonka Soomaaliya asumida dhageysanay oo la yiraahdo muxuu ahaay ya Fahad Yasin sumida dhageysanay ninkaas markuu taariikhdiisa ka sheekay wuxuu yiri anigu waxaan ahaa jamaacada loo jeedo jamaacatul ittihad جماعة الاتحاد كانوا يسوقورتوا وحي يسوقورتي اعتصام markii la weydiiyay lagu yiri miyaad ka baxdeena xagoona ka baxay anigu de jamaacada way soo guurtay baan ku dhibay اعتصام uu soo guurtay soo gashoon اعتصامka iyo اتحادkuna waa isku mid اعتصامka malaha in yaro kooban taariikhdiisa intan ka ogahay hadaan ka warramo waxa weeyaan halkan barigii dhowr 90kii dhalinyarana waxayno waxban beranin اعتصامku halku ka yimid weeyaan waxa jiray halkan waxa ka jirtay in taariikhda ka yarshakana ay roo fiicanta in la ogaadade waxay ka yimaadeen anu intan ka ogay markaa sheegay waxaan ka ogahay waxa jira halkan jamaacatul ittihad la yiraahdo mid balaaran baa jamaaca weyn baa oo dhulka af Soomaaliya laga hadlo dhibka jirtay qolo ayagu waxa jira ikhwaan muslimiin aha oo waxdada la oran jiray iyagana oo ka jiray intan waqooyiga oo Soomaaliland ay ka jiraan iyagu marka anagu dhalinyarana ahayn dhowr 90kii waxaan dhigan jiray qolo ayagu waxa soo baxay jamaacadka ka cadhooday oo ka soo baxay oo iskaga tagay wax uga tageenba iyagana waxa la oran jiray مستقلين بالورن جري ka qolada mustaqiliinta iyagu nago madax banaan weeyaan kuwana manihin meel dhaxanay weey waxay ka shaqeeyeen isku yimaado oo la midoobo marka waxa lagu ballamay waxa la yiraahdaa in midoono hal midoobo qoladii ittixaadka iyo qoladii waxdada ahayd ikhwaan muslimiinka aha hal midoobo laakiin shardi marka waxa shardi laga dhigay in inta waqooyigu ama Soomaaliland in horta marka hore gaar noqoto intaas horta in midoodo oo mid noqoto
intaa wixii ka dambeeyana qolada kale lagu biiro qoladii itixaadka ayaa halkan joogtay way ogolaatay in yar mooyaan rag baa diiday rag magaalada jooga laftooda way diideen anagu qolada sare waxaan ahayn ma ogolin dabeetana qoladii mustaqiliinta ahaa iyo qoladii itixaadka ahayd iyo qoladii kale waxay ku midoobeen in jamaaca la sameeyo keliya jamaacadan waxaa loo bixiyey التجمع الإسلامي تجمع بلوبي تجمعaasi waxay ka qaadeen dadka wax muwaafaqo la yiraahdo bay'ada markii hore la qaadi jiray xarakaadku bay'adii warka waa laga tagay waa la iska daayay waayo bay'ada lagu qabsaday inay banaanayn waxba uu ka soo baxday dabeetana muwaafaqo bedelay waxaan xusuustaa iskuulka Sheekh Bara wala yiraahdo ayaa muwaafaqada dadka laga qaadisay kuwa laga qaadin ku jiraan aniga laftayda dhalinyarada yarada la soo ururiyay ee halka lagu soo ururiyay kana halkaas muwaafaqada laga qaad halka maxaa soo baxay marka at-tajammu' al-islami maxay ahaayeen itixaadki iyo qoladii akhwaan muslimiinka ahaa ama waxay dahayd akhwaanka ahaa ayaa isku biiray marka waxa la baxay tajammu' baa la baxay muddo ka bacdi ayaa waxa hadaba qoladii itixaadka laga soo haray dib hal midoob waxa la isugu tagay meesha la asxaanood la yiraahdo dabeetana waxa la sameeyay waxa la yiraahdo maanta al-i'tisaam itixaadki koonfurta joogay iyo Somaliland aan ahayn iyo qoladii tajammucay halkan ka jirtay oo itixaadkii hore ka koobneed iyo waa la isku biiray mid kaliya la wada noqday waxa ka soo baxay waxa la yiraahdo al-i'tisaam marka waa itixaadkii hore halkan joogay itixaadkii markii hore haray xagga ku haray oo wada socday qoladii halkan ku biirtay akhwaanka ahay marka isku biiran waxa loo bixiyay al-i'tisaam horta ixsaan halkaas keen qoladaas ku biirtay weeyaan tajammuci oo marka hore halkan lagu sameeyay iyo itixaadkii oo dabeetana i'tisaamkaas ay noqdeen waxaan filayaa qoladii akhwaanka ahayd inay muddo ka bacd iskaga haray odayaashooda oo gaarkooda markaas ay u shaqeystaan horta halkaas keen waxaan la oran karaa in ku wax isku haray waa wixii intii itixaadka loo oran jiray uba wado marka tusaalaha waxayna la yar galay ka muxuu ahaa ya fahadkaasi ayaa nala galay muxuu markaas isugu diiday inuu ka baxay mashaaqo wala soo guuray halkaas la isku wadiiday maxaa bixitaan xashiga saamaxay wili muxuu ahaa soo laakiin waa madaxii sirdoonka waadii salafinta waxay ku yeedayaan dawaaqida u shaqeysay isaguna madaxii sirdoonka ahaa meena diidin ka baxay iyaguna may iskamay bari noqon oo iska daadafeen tusaalaha labaad baan sheegaya ka khatarsan bakaas kana nin dhintay Allah u naxariisto dambigiisa la dhaaf waxa la oran jiray Ahmed Kaysi reergiisu ah ninkaas sidii soo dhaartay YouTube ku jira waxa dilay qolada shabaabka dishay ninka aduu calay xal wuxuu wax ku dhacayba iyo cabsi qabatayba wuxuu u shaqeeyay isagoo ku dhex jira qoladan wadaadada ayuu wuxuu u shaqeeyay qolada sirdoonka Mareykanka sagana cadeyn u sheegay inuu shaqeeyo qolada i'tisaamkana waa kamid qolada Mareykankana waa kamid uu la shaqeeyaa iyagana gacan buu leeyahay dabeetana ninbu warka siiya ninka warka uu siiya xagu jooga dooy buu jooga waa nin gaar akhbaartu qaada halkaas u geeyo wuxuu yiri intaan la dilinba warkan ka duubeen idin markii nabiga dilay wuxuu yiri shir waxa xamar loo qabtay i'tisaamka shirka halka ku qabtay shirkaas ay noqotay in ka qayb galaan waliidii markii hore inaan galo waliidii markii dambe waa la ogolaa adoon ka qayb galay buuri hadalna waan ka yiri u ka hadlay meesha ka bacdi markii waxay dhamaadeen waa inuu warkii gudbiyo warkii baan in doonay inuu gudbiyo duuban tagay buuri kii gaalka ahaa ayaan la kulmay buuri kii gaalka ahaa warkii uu iga horeeyay iyo hayaab wuxuu sheegay buuri aniga lii diiday meesha
صوتي اللي ودي هذا يدقشي هاي markii dambe waday galawadii hadlay ay waxay akhbaartii meeshan dhiibi lahaaya wabiga horeysaa iyo xasaasiyo akhbaartii oo dhan uu haya hadalku yiri hadal ajaayib wuxuu yiri waxaan ogaaday fara iga dhuubani in meesha ku jiraan dad iga fara dhuuban in meesha ku jiraan baan ogaaday buudi ya halkaan wax ka soo baxay arrin kale khatar waxaan xusuustaa marka arinta maqlo waxaan xusuustaa hadal aan ka maqlay Sheekh Muqbil rahimahullah wuxuu yiri jamaacaadka islaamiga Masar buu tagay waxa arkay kun jamaaco iskara yaacay kana jamaaco hebel kana jamaaco wayaal laakiin markii dib waxaan ogaaday wili in jamaacaadka liftooda ay aasaasan mukhaabaraadka liftooda ay aasaasan ayaga jamaacada nin bay sameynayaan garka wala baxaya wada suraalkan waa gaabsanaya waa wadaadka safka hore ku gula jira ee ajaayibka isagana sameynay iyaga ba sameeyay wili marka horta wixii ay eedahi xaga kale u beeray inagu ku eedan mayno waxyaabahaas inagu